maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabanay inaan halkan idiin sheegno ka cadayno inaan fulinayno wejigii saddexaad ee deeqaha gurmadka abaaraha. Horey waxaan u soo bixinay wejigii koowaad iyo kii labaad, mid walbana wuxuu ahaa $150,000. waxaa intaa feer socotay runtii lacaguhu intaasun ma ahayn, lacago badan oo emergency aan ku magacawnay oo hawlo badan lagu qabtay oo ay ka mid tahay daawooyin la gaday oo la diray, daawooyin meelaha laga gaday, xagga biyaha taageere laga bixiyey, deeqa raashin, waxyaalo badan oo emergency oo sidaas oo lacag badan ku baxday oo in badan oo ka midana horey ay u baxday, in kalena hadda jeegeedii qoran yahay oo mar dhow insha Allah meelihii loogu talagalay gaadhaysa na intaasna iyaduna way socotay. Marka maanta waxaa la soo gaadhay inaan bixino wejigii saddexaad. wejigii saddexaad wuxuu kaga duwan yahay wejiga saddexaad wejiyadii hore. Lacagtu intii way ka badan tahay, waa 200,000 statekiiba. haddana waxaan ognahay bishii Ramadaan ee barakaysnayd inay inagu soo dhowdahay. taasina waxay keeni lacagtan haddiiba la badin karo in la badiyo oo 200 waxaan u gaarsiinay ka mid bay ahayd, iyo dadkii oo dhibaato badan laga soo sheegayo. waxaan gacanta ku hayaa 7 jeeg oo kiiba 200,000 ay ku taalo. sida loogu talagalayna waa Somaliland oo 200,000, Puntland oo 200,000, Galmudug oo 200,000, Hirshabeelle oo 200,000, gobolka Banaadir oo 200,000, Koonfur Galbeed oo 200,000, Jubbaland oo 200,000. isu geyn lacagtaasi waa $1,400,000. lacagtaas guddiyaha qaadaya ka tirsan guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha. waxaana u sheegayaa saacadda laga bilaabo guddiga in agtiisa inay ka fasaxan yihiin safarkoodii inay bilaabi karaan. guddigaas howlaha loo igmaday waxaa ka mid ah lacagta inay gaarsiiyaan stateka ayagoo shuruudo kuwii hore ka adag wata, maadaama Soomaalidu cabasho aan laga weynaynin, waxyaalo badan la sheegayo. waxyaalahan la diray waxaa ka mid ah tii hore ee la diray, wejiyadii hore ee la diray inay soo salgaadhaan waxa ka soo dacaayadaha la sheegayo, waxa ka saxayo, waxa ka been inay soo taabtaan. wejigan saddexaadna meel fiican inuu maro oon shaki lahayn, oo dadkii mustaxaqiinta ahaa ee mutay ee loogu talagalay dhibaataysnaa sidii loogu talagalay loo gaarsiiyo. waxaan shacab Soomaaliyeed baa soo aruuriyay, waxay ku dadaalaan oo mar walbana weydiiyaan lacagta ammaano inay gasho, gacan ammaano inay gasho, inaan lagu saqajaamin, musuqmaasuq inuusan dhicin. annaguna waan ka ballan qaadnaa. haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa sidaasuun inay ku dhammaataan rajaynaynaa. guddiyadana waxaan faraynaa inay shuruudda aad u adkeeyaan, ay wax ku bixinayaan tii hore wixii lagu bixiyeen ay daba galaan, dadkii inay gaadhayna ay soo hubiyaan, tanna ay naga hubiyaan, waxba ayna soo degdegin. ayagoo markay hubsadaan lacagahaas gacan ammaana inay gashay, dadkii loogu talagalay inay gaadhay, markaasuun inay soo noqdaan. kelimadda u dambaysa dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa, ilaahay baa roob ina siiyey, ilaahay aan ku mahadinno. cabaadka badan iyo cabashadana waxaa fiican ilaahay in loo cawdo oo la baryo. bini aadanka baryadiisu ma fiicna. waxaa kaloon idinkala dardaarmayaa, waxaan hubsannay dad cabanaya oo waxbaba nalama siinin, warkaasina uuna sax ahayn. lacagna ay gaadhay, daawo ay gaadhay, wax walba ay gaadhay, haddana la shilinba maanaan arag. taasi waa ceeb. dadka idin sharfay ee wax idiin geeyana karaamada ha ka qaadina, beenna ha sheegina. qofku wuu dhihi karaa
waana la siiyey laakiin waxbaan hadda u baahannahay laakiin waxbaba nalama siinin arrimahaas waan xaqiijinay dad sidaa u dhaqma waan ogaanay marka ceeb bay idinku tahay iska daaya waxyaalaha noocaasa cabashada badan iyo qaylada badan ha la iska daayo annaga wixiina soo gaadhay idinkun baan idiin haynaa meel kale uma wadno hal shilin meel kale ma aadayo kelimadda u dambaysa dadka soomaaliyeed ee deeqbixiyaasha ah gudi iyo dibadba waxaan oogu baaqayaa inay musaacadadoodii iyo deeqdii halkoodii ka wadaan yacni dadkii roob baa da-ay maalan waxaa laga yaabaa dad badan inay is yidhaahdaan hadduu roob da-ay abaartii way dhammaatay abaartii ma dhammaanayso sababtoo ah ee dadkii xoolihii baa ka dhammaaday abaartu marka xaggey ka dhammaan waxay cunaan baa deyna haysan xoolihii yaraa usoo hadheen neefafkiina roobkaaba dilay midda kale cudur baa jira daacuun iyo shuban biyood iyo waxbaa jira barakacayaal badan baa jira hataa in meelahoodii lagu celiyo gurmad iyo lacag badan bay u baahan marka dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maalintaan bilaabeynay oo hadda dhowr bilood sii maraysa iyo maanta gurmadki sidii un in loogu baahan yahay abaartii sidii inay u taagan tahay baahidii sidii inay u taagan tahay marka ilaahay agtiisa aad wax weyn ka helaysaan danbay idinka naftiina idiin tahay adduunyo waxa yaalla micno ma laha kaydka aakhare ayaa fiican aakhare waxa la dhigto yaan laga daalin yaan laga noogin waxaa weeye ilaahay agtiisa wax badan ha la geysto maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq waxa idinka agtiina yaalla wuu dhammaanayaa ilaahay agtiisa waxaa loo diraa baaqi ah marka xagga ilaahay aan waxu dirno aakhare aan u baahannahay xaggaa sadaqadii ha socoto aad baan idinku mahadinayaa waxaan kaloon rabay gebagabadii intaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa telefoonkayga dadkii walaalaha ahaa ee deeqbixiyaasha ahaa oonoo muqdisho jooga aada iila soo hadli jiray inaan safar yar galo oo telefoonkayga ay yar waayaan meediyaha waxaan idiin soo marinayaa inaad ku soo aadisaan meeshaad aniga iga soo wacayseen guddiga oo dhan horta waa dad aaminiin waa lagu soo diri karaa laakiin gaar ahaan sheekh bashiir axmed salaad oon huba aniga inuu dhinac walba iiga fiican yahay iyo aad ku soo diraysaan iyo mukhtaar sheekh xuseen jumcaale oo xisaabiyaha ah asagana aan idinka hubo oo nin fiicana sheekh bashiir lambarkiisu waxaa weeye waa furuhu waa 68 ma iwan sheegi 21 say ku garanayaan 68 21 8 kaygaba waa la haystaa kiisana la haysta waa 68 21 8 mukhtaar sheekh xuseen jumcaala kuu soo hadhay asna 5 qaaradood waa in laga arko telefoonkiisa asaguna waxaa weeye 22 9 2 7 labadan nin inta aan maqnahay wixii aad ii sheegi jirteen aad ii dhiibi jirteen iyo wixii codsi oo ahaa telefoonke meeshaan tagi doono hadda weli lama sheegayo marka insha allah telefoonka xaggaasna waan soo sheegi doonaa markaan tago marka saasaynu isku ognahay saxaafaddana waan salaamayaa maadaama ad xil weyn u haysaan ummadda soomaaliyeed oo ad gudbisaan baahidooda iyo sida wax u jiro